madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle oo waraysi khaasa siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in heshiiskii dhowaan ay dowladdiisu la gaadhay mucaaradka uu qaboojin doono xiisaddii siyaasadeed ee ka jirtay jabuuti. madaxweyne geelle waxa uu sheegay in iyaga iyo mucaaradku ay haystaan muddo 30 cisho ah oo ay ku saxiixaan heshiis waara oo lagu dhammaystirayo qodobo weli labada dhinac ay ku kala duwan yihiin oo ay ka mid yihiin maqaamka xisbiga mucaaradka iyo dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. cabdicasiis xuseen ayaa khadka telefoonka ee jabuuti ku waraystay madaxweyne geelle, waxaan haddaba idiin soo gudbinaynaa qaybtii koowaad ee waraysiga oo ka hadlaysa heshiiskii dowladda iyo mucaaradka jabuuti. bismillahi raxmaani raxiim. horta dhegeystayaasha v o eda iyo shaqaalaha v o eda iyo madaxdeedaba waxaan leeyahay sanad wanaagsan. sanadka 2015 ilaahay khayr iyo barako iyo horumar iyo caafimaad baan idin rajeynayaa. su-aashaada haddii aan usoo noqdo, waxaa sida aada sheegtay annaga iyo waxaan jeedaa xisbiga mucaaradka ay ku urureen wadahadal baryahan dambe oo dhan noo socday oo kolbe hakad yaro gelgelayay ayaan saxeexnay maalin dhaweyd. annagu dee aada baan yani usoo dhaweynay oo aan isleenahay waxa uu qaboojinaya hortaba jawiga siyaasadeed. waxa uu abuurayaa manaakh cusub oo magaranaysaa ee dadku ay ku loolamaan ama ay afkaar isku weydaarsadaan ama ay danaha dalka kol haddii meedaan siyaasadeed la iskugu yimiday in laga doodo wixii wadanka yani qolana ay de hawshii gacmaha ku hayso oo ay wado, qolada kalena ay sheegayso naqdi ku sameynayso ama ay odhanayso yani waan ka horjeednaa sida dadka ilbaxa ahee dimuqraadiyadda ku shaqeeya inaan meedaankaasi aan u gogol xaadhno ayuu ahaa. oo dee caradii hore iyo wejidadabkii hore iyo waxaa 2 sanadoodna soo haystay sidii aan uga bixi lahayn. iminka waxaan dhignay waxa weeyaan framework, waxaan soo xayndaabnay sida wadahadalku u dhici doono, sida yani nuqdadihii aan ku heshiinay inaan ka wada hadalno, sida ay yani baarlamanka iyo guddiyo iyo isku dhafan oo dee ka kooban labada qoloba inay hawl galaan iminka yani 30 cisho dhexdeeda. waa tahay markaas 30 cisho gudahood ayaad ku samaynaysaan heshiis waara oo aad kusoo dhisaysaan guddiyadaasi aad sheegtay. bal guddiyada maxaa ka mid a 30 cisho labadiinu aad rajeynaysa? iyagu ay diideen ayaa jira oo yani ay leeyihiin dib ha loo eego, horta in la siiyo maqaam la siiyo yani mucaaradka siyaasiga ah oo uu dee yani uunan ahaanin qof ka baxsan systemka oo yani lala sheekaysto, lala hadlo, yani mawaadicda waaweyn ee wadanka kolkay soo food saaraan yani ra'yigooga la qaado, la tixgeliyo. guddida yani kormeerka oo doorashooyinka oo qaabka ay u dhisan tahay ayagu ay si u arkayaan, annaguna aan si kale u arkayno. taasna inaa laga doodo oo la iskugu yimaado meel dadku ay raalli ka wada noqono. waxaa kale oo ka jira xagga yani presska iyo warisgaarsiinta iyo waxaasi inay iyaguna waxyaalo ka arkayaan xuriyat alqawlka iyo xuriyat yani jaraa'idka iyo waxaasi. taasna inaa dib loo eego. sharciyadu way jiraan laakiin waxay leeyihiin waxbay tabanayaan, ay diidan yihiin. meedaanka in lasoo wada dhigo waxaasoo dhan oo laga doodo oo meel la iskugu yimaado weyaan.
waa tahay daahir faarax hafayeenka USN wuxuu sheegay in labadiina dhinacaad 30 cisho haysataan oo heshiiskaasi ku gaaraysaan oo ay ku jirto sidaad sheegtayba maqaamka mucaaradku uu yeelanayo iyo waliba abuuritaanka guddiga madaxa bannaan ee doorashada marka sideed u qorshaynaysaan idinka ka dowlad ahaan in aad qodobadan oo u muuqda labadiina inaad ku kala duwantihiin inaad meel dhexe isugu timaadaan oo heshiis uga gaadhaan qorshayntu waxay ka soo baxaysaa kolka anagu yani dadkii dejiyey shuruucdani ayaan nahay ayaguna waa dadka naqdiyayo kolka dee inaa meel la iskugu yimaadaayey kolka baarlamanka yani ay soo galaan iyagu mucaaradku dee guddi baarlaman ahoo sharci dejinta waxaa le mas-uuliyadaasi waa baarlamanka indee guddi parliamentarian oo iyagana ka kooban annagana yani tiro mid ahaatee ah inay wada fadhiistaan dee inay hawsha ay ajendaha samaystaan ay dee hawl galaan ayaan ku heshin marka intaa hadhee la dhamaystiraya ma dhici karta inay ku jiri karto inaad ka fikiri kartid in mucaaradkaa dowladdaada kusoo dirtidood ay wasiiro dowladdaada ka noqdaan haddii lagu heshiiyo baan ujeeda anigu waxba kama qabo waa tahay marka way furan tahay in ay dowladda ku xubin ka noqon karaan waxba maaha taasi anigu side waxaan leeyahay yani wadahadalkeena frameka kuma jiro in ma garanaysaa ilan dawladda xukuumadda haddii lasoo galo mucaaradna miyaan lagu noqon karaa maya waa inaad dee yani ama maqaamkii mucaaradnimo ayaa lagu joogayaayo doorashooyin iyo siyaasadda iyo mashaariicda iyo waxaasaa laga doodi haddii dee aan isku darsana la yidhaahdana waa rag baa ka heshiiya oo taasna waa la isku darsan karaa dee dhib male marka 30 cisho ee bilowday rajadaad ka qabtid in wax rasmiya aad wada saxeexdaan intay leegtahay anigu waan ku kalsoonahay oo waxaan isleeyahay inaan hawsha aan ka gudbi karno oon heshiis gaari karno wixii dee alla ogyahay sidamood waa tahay intaasi bal aan uga gudba dhinacii siyaasadda dhinaca dhaqaalaha sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadadii ka horreeyba dowladda Djibouti waxay sheegaysay in dhinaca kobca dhaqaalaha marka la eego uu dalku uu soo wanaagsanaanayo oo mashaariic badan iyo maalgashi badan ay dalka ka socdaan balse dhinaca kale markaad eegto dadka reer Djibouti waxaad moodaa in weli kobacaasi ay dowladdu had iyo jeer sheegayso inaanay dareemin oo saboolnimo weyne ay jirto marka maxaa macno ay ku fadhidaa madaxweyne in dowladdu ay ku celiso kobcii wuu fiican yahay haddii danyartii weli noloshii ku adag tahay dadka dee iminka anigu xisaab haddaan galno sanadka iyo kii ka horreeyey sanad waliba inta qof ee ka baxday saboolnimada ee nolol gashay inta qof ee dhalinyaro ah ee shaqo heshay inta yani mashaariicdaas socda ka faa'iidaysatay de statistic haddii aad doonayso waa soo wada qorayna wadan yani Yurub tag America tag dad sabool laba waayo meel walba uu jira saboolka laakiin waa dadaalku waxa weeyaan in aad hore u dhaqaajiso wadanka in aad wadankii u furto ma garanaysaa ay maalgelinta shisheeyaha in aad kaabayaasha dhaqaalaha aad ma garanaysaa aada u hesho yani ilaa haddii aanan jirin infrastructure haddaynan jirin cid maal gashan kartaa ma jirto wadan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo khadka telefoonka ugu warramay Cabdicasiis Xuseen